qofka hadduu maskaxdaada dhiso oo maarata oo kusoo saaro waxaad ogaanay inuu meel fiican ka soo saaray dadka dhan oday reer baadiyaha iska socdaa kaligiis wuxuu yiri nin kale u yimid iska war hebel warniyo maanta waa xanuunsana si xagee ku xanuunay feeraha ay xanuunayo waxa samaysaa ukunta digaaga cunug ayadaa ku reysinaya soo ukunta maxay qabataa feeraha xogaa ku nadiifinayo ukunta habarti dhashay maarato suuraha lugeeda fiir inta leegiyo say u dhiri ayada has daawaysa marka hore meesha waxa imaanaya ugu muhiimsan qofka horta waxa quality soo leeyo asagoo oo soo dhisay waa inaa marka hore fiiris inta adigu marka hore qofka aad dooran qofka qabiil ha ku dooran waa aqaana laakiin maanta dadka dhibaatada ku jiro ma ka saari kara horta inaa fiirsid waay state of Minnesota oo Mareykanka kamid ah wadaad waxa la Soomaaliya wuxuu tagan 1993 markii Soomaalida ugu horeysay booliska qabtay booliska markuu qabto wuxuu yiri istaag waxoogaa gaarigu speed gareynaya markuu soo xir waa speed gareynaysa driverless-ka keen driverless markuu ka qaado fiiriyay booliska waxa uu soo dhaca call emergency asaliya library-gaas gubtay soo orod driverless-ka soo dhiibay ninka dambi dhaaxa ma gelin waxa driverless-ka qaaday bax driverless marka loo dhiibay Ingiriis dhaaxana ma yaqaan wuxuu u fahmay booliska aniga leerkan shidana hatta iga hartaday ku taala boolis leer shidadii ma qaban kartaa gaari kala wado leerku gooyo waa kala daba gooyaa leerku gooyo waa kala daba gooyaa soo u socday oo library-ga istaag dhinaciisa istaaga soo war maxaa ka qaldan oo soo raac madin xagan kaaga haraa Soomaalida hadda maanta dhibaatada haysto waxa waaye adduunku waa loo baahan in la xushmeeyo waa loo baahan in wax badan la qabto laakiin waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan qofka horta inta qofka kala raacan oo ka daba speed gareynin horta qofkan muxuu ku haya muxuu ku qaban kara muxuu wadanka ku tari kara maxaad bedeli kartaa waa inaad dhinacyo badan ka fiirsid ma aha inaad hal dhinac kaliya inta ka fiirsid aad tirada baalka la yiraahdo qofkan waa raaca ma inaad saas samaysid ma aha waxa inii sheega aqoontu dadka waa dhistaa dadka dabeecadooda iyo maskaxdooda intaba waxay ku fiican tahay qofku inuu qof aqoon leh oo salka la galo dadkaasna ay weydiiyaan war qofkan muxuu noo qaban karaa ma ahan in la dhaho odayaashanada maanta aan ku camiranahay inta uu tagay Mareykan oo xogaa Ingiriiska waa aragtay islaamahana hani markii la dhaho waa eray Ingiriis laakiin hani gabdhaha Soomaalida waa magacooda Ingiriis soo bartay Soomaaliya uu tagay islaanta uu tagay markaas uu bikari biya markuu disoo xiro hani biya ii soo qabo biyahay u keenta waa xanaaqsanta iyada waxay muddo islaan kale lala qabo hani biyaha ii soo qabo waxa leedahay islaantan adiga markii lagu ciilaa magaceeda lagu caaba dhibaata ka jirta meesha hani waxa ii soo qabo last minute-kii markuu banaanka u baxay alaabtii dhamaashi jabis duurkii oo yimid asir hani cunto keen istay hanida saa ka sheekeynayso waxa ku kariso waxa loo baahan yahay qofku inuu wax kasta hubsado intaan maaragtay aan move ka la sameeynin ama aan la degdeginin in maaragtay la sameeyo qofku marka ugu horeyso 1994kii anoo geel la joogo 1994ka hadda waa anoo geel la joogo oo bariga garabka iskaga wato nin Kanadiyaankii markii yimaadeen u turjumayay oo Soomaaliya aan arkay marka ninkii arkay waxaan ku eray waa artay weligeeba gaari ma arkin oo ku soo orday markaan ku soo ordo shaqada gacantayga gal wuxuu yiri wareer baadiyo kasika meesha waa iska tagay aniga 1997 anoo UNICEF albaabkeeda ka shaqeeyay laakiin layla dardaaran ali nin madow ha ka furin nin cad ma ahane ninkii oo niman cadaan la socda aan arkay war waxa ninka waa ninkii caanka maalintii shaqo gacanta ka galiyay maanta reebadiya ninkii aan la ogaana labada cadaanka siida adiga waxaan ku reebadiya banaanka istaag oo aniga ma reebadiya la saaxiib raalli ah waan saaxiib banaanka istaag ninkii afka uu burka siida waa impotay waxaan ku dhani dhageyso waxa leeyahay nin cad ma ahan nin madow soo day nin madow ana te banaanka taagnaa anaga hadda waxaan rabnaa inaan approve gareyno in qofku inta baadiyana wax ka qabsado magaalana inuu wax ka qabsan karo inuu ogaan to be honest waan run anoo geeliga iskala joogto waa aragtay reebadi waxay qodaan markii balliga biyaha meel waxay qodaan oo balliga markii biyo ka dhamaadaan uu shaqo la dhaw biyaha laga caabo baalkii meeshii aad reebadi qodan iskaga tageen anoo geel la joogna aniga nin hadda maaragtay oo aji keerir oo geel laga iskala joogna waxa dhacday balliga buuxsamay geeliya ku soo wada orday hal oo jeclaaya ceelkii lagu hala gashay markuu biyo magacab markaas inta xagga dhinac istaa meel cilaan joogna waa aniga asaga bis geelan la joogna waa ooyay markii anigana geeliga la joogta sana geeliso la joogtaa ninkii 2000kii aan waxaan ku arkay Seattle Washington ninkan anoo maanta uu ka dambeysmaan ku ilooba war ninkan xageed ku aragtay furo BMW wata ninkan waxa uu kana daba soo geel hal ceel uga dhacday ninkan xagga ku aragtay waa fikirnii waxaan ku dhahay ma tahay nin hebel war wuxuu yiri waa ka tagnay waliga lay baadiye ma tagin
warniyo waa ku arkay waligay ma arkin last minute waxaan ku dhahay dhinaca tuu istaajiniyo nin maalinta hal ceel uga dhacdo adiga ma tahay iska daaya BMW maada wadateen hadda baadiye ka imaan lahayn wuxuu riyaa ku sheegay waa ku xasuustaa rasaa ninka ku ag taagnaa biraha wataan ahaan hal saaco qosla kulaha niyo qolna uu sheegay aniga niyo baadiye oo lagu faanaan kowdhi lagama faano ogaaw taas